duqayntii ay wadeen kooxaha Falastiiniyiinta ayaa u sii gudubtay dhanka caasimadda Tel Aviv oo sidoo kale ah magaalada dhanka baayac mushtarka ee Israa'iil leedahay ahna magaalada ay degan yihiin 40% dadweynaha Israa'iil kuwaasoo caawa la amray inay galaan godadka dhulka hoostiisa laga sameeyay ee colaadaha lagaga gabado waxaana la xidhay garoonka weyn ee caalamiga ee diyaaradaha ee Israa'iil leedahay ee Ben Gurion kadib markii hareerihiisa iyo isagaba ay duqayntu gaadhay diyaaradihii iyo duulimaadadii ku soo jeeday garoonkaasi ayaa loo leexiyay garoomo Israa'iil dibaddeeda oo ku yaala wadamada Qobrus iyo Giriga iyagoo ay Falastiiniyiintu fiidnimadii caawa ee Arbacada soo gelisay 130 gantaal ku rideen oo u rideen dhanka magaalada Tel Aviv gantaalaha oo qayb ka mid ah ay qabatay gaashaanka dhanka difaaca ee Israa'iil laakiin gantaalihii u gudbay dhanka magaalada Tel Aviv waxa la sheegay inay ku dhaceen dhismayaal waaweyn oo xarumaha halbowlaha ee magaaladaasi sida garoonka diyaaradaha caalamiga ee Ben Gurion sida caadada ana Israa'iil iyo warbaahinteedu marnaba ma baahiso nooca waxyeelada ee gaadhay siyaasadda oo ah mid soo jireena oo daaha lagu saarayo khasaaraha cadawgoodu soo gaadhsiiyo duqaynta Falastiiniyiinta ee magaalada Tel Aviv ayaa waxa ay timi markii militariga Israa'iil ay dhanka cirka ka duqeeyeen magaalada Gaza galabnimadii Salaasada duqaynta oo ay la beegsadeen dhisme 16 dabaqa oo ay dad raydi deganayeen xaaladda ayaa si aad kor uga kacday gudaha Israa'iil iyadoo ay militarigeeduna u dhow yihiin inay la wareegaan maareynta xaaladda kadib markii uu soo kordhay shakiga laga qabo siyaasadaha amni ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo loo arko inuu xaaladda ku xumaynayo xisbiyada mucaaradka ee ku maqan inay xukuumad soo dhisaan xilli ay haddaba xaaladdu sidaa u kacsan tahay dhanka magaalooyinka Qudus iyo Gaza ayaa haba yaraatee aan wax warar laga haynin xukuumaddii Falastiin ee daanta galbeed ee uu hogaaminayay madaxweyne Maxamuud Cabbaas magaalada Ramallah waxaa la sheegay inay ka jiraan cadho ballaaran oo ka imanaysa dadweynaha caamka ayna horkacayaan xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Fatah cadhada oo ku aadan xukuumadda Falastiin lafteeda iyo sababta ay uga aamusan tahay dhibaatada lagu hayo masjidka Al-Aqsa iyo xaafadda Sheekh Jarraax ee magaalada Qudus iyo duqaynta lagu gumaadayo shacabkii magaalada Gaza iyadoo ahayd maamulkii kaliya ahaa ee dowladba u ahaa dadka reer Falastiin dhanka magaalada Qaahira fadhi degdeg oo ay yeesheen wasiirada dalalka ururka jaamacadda Carabta ayaa sidii caadada ahayd waxa laga soo saaray go'aamo tilmaamaya cambaarayn iyo dhaleecayn la saarayo Israa'iil oo lagu dhaleecaynayo waxyaabaha ka jira masjidka Al-Aqsa iyo xaafadda Sheekh Jarraax ee isla magaalada Qudus iyadoo aan wax dheeraada oo tallaabo ah aanay dalalka Carabtu ka qaadin arrinta halka ka taagan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mawlid Jawish Ogle oo booqasho 2 maalmood ku joogay boqortooyada Sacuudiga Isniintii iyo Salaasadii waxa uu sheegay in aan xaaladda marinka Gaza iyo magaalada Qudus lagu sii eegan karin sida xaalku yahay isagoo wasiirku ka sanqaliyay suurtagalnimada inay Turkigu maraakiib dagaal u diraan xeebaha badda Mediterranean-ka ee ku aadan dhulka Falastiin si ay xaaladda ula socdaan wafdi diblomaasiyiin oo iyana ka socday midowga Yurub ayaa maanta waxay gaadheen magaalada Qudus waxaana ay la kulmeen qoysaskii Falastiiniyiinta ahaa ee xaafadda Sheekh Jarraax ee Israa'iil khasabka kaga raraysay guryahooda iyagoo wafdiga reer Yurub u muujiyay qoysaska taageeradooda iyo inay ku dhinac taagan yihiin ku adkaysashada xuquuqahooda iyo waxaana ay sheegeen inaanay meelnaba kaga jirin bani'aadanimada in dad rayida laga raro dhismayaashoodii iyo hoygoodii dadweynaha xaafaddaasi ayaa dhankooda waxay ku wargeliyeen wafdiga reer Yurub in Israa'iil ay ka idaad haysato dowladaha reer Yurub waxaana ay ka codsadeen inay ka jaraan nooc kasta oo taageera oo ay u adeegsanayso dilka carruurta barakicinta qoysaska Carbeed iyo duminta guryahooda